بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على امور الدين والدنيا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. magacayga waa Cabdi Sayid Xuseen, waxaan baraka xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho. waxaan soo barnaamijkeeni ahaa Excel Statistics. waxaan taaganaa warqad ay ku qoran tahay variables. waxaan rabnaa variableska inaan kala saarno anagoo isticmaalayna diagramka meeshan ku yaalo ayaan waxaan u kala saari doonaa laba qaybood oo waaweyn. qayb walbana qaybaha ayaa hoos imaanaya. haddii aad baahatay faahfaahinta iyo akhriskiisa buugga ayaa ku laaban doontaa haddii la raado. haddaba daatada markaa haystid dabcan laba loo kala qaadi doonaa. data leh hal variable amba hal isbedel amba data leh laba variable marka qaarkoodna ka badan. haddaba daatada markii hal variable ay leedahay waxay noqon kartaa categorical amba quantitative. categorical waxaa laga wadaa daatada in halkaas variable inuu yahay qoraal means category qoraal ayaa laga wadaa. tusaale ahaan warqadan haddii aan imaado visualization oo ah 10 noo soo socda haddii la yiraahdo daatadan oo kale waxay wadataa hal variable-keedana wuxuu noqonayaa categorical waa qoraal waay. marka qoraalkan ayaan rabnaa in aan kasoo dhalaalino warbixin dhammaystiran. marka cashirkaas ayaan ku samayn doonaa haddii la yiraahdo. markii qoraal uu yahay one variable uu yahay waxa iska noqonaya categorical. waxa kaliya samayn kartaa waxay tahay inaad table samaysid sida frequency distribution amba percent frequency oo kale inaad xisaabisid amba graph ahaan inaad u soo muujisid. labadaasba waa gaari doonaa haddii la yiraahdo. haddii ay noqoto quantitative waxaa isticmaali kartaa wax loo yaqaano table amba graph ayaa isticmaalaysaa. oo table markaa isticmaalaysid frequency distributionka iyo percentage frequency-ga iyo relative frequency-ga waxaasoo dhan kuu fududaanaya inaad samaysid. sidoo kale waxaa samayn kartaa adoo isticmaalaya column chart, bar chart amba chart histogram wax lamid ah ayaa diyaari kartaa. dabcan waa arki doonaa haddii la yiraahdo. markii uu leeyahay quantitative-ka wuxuu noqonayaa column number oo kale markuu jiro markaasoo kale ayuu wuxuu noqonayaa in daatadii aad ku samayn kartid frequency distribution-ka ama graphicsna waa u samayn kartaa. markii ay jiraan laba variable waxa uu noqon karaa wax loo yaqaano categorical amba quantitative-na uu noqon karaa. sidoo kalena quantitative keligiisna uu noqon karaa oo waxa iskugu jiri karo table-ka qoraal iyo nambaro sida kan meeshan aan ku haysan oo kale. qoraal iyo nambaro waa isku haysan kartaa. nambar keligiisna uu noqon karaa table ka kooban. haddii qoraal iyo nambaro isku jiro yahay waxa ku fududaanaysa inaad table ku soo diyaarisid. sidoo kale graphna inaad samaysid way ku fududaanaysaa oo cluster column iyo bar chart stack wax la mid ah ayaa samaynaysaa. haddii uu yahay nambaro keligiis waxa kaliya la samayn karaa waxay tahay oo uu yahay wax la isku barbardhigayo oo labada dhinacba ah haysatid labada variable waxa uu iska noqonayaa in aad isticmaashid xy scalar jar wax loo yaqaano. oo waxaa rabtaa tusaale ahaan ardayga inta saac wax baranayay ayaa waxaa rabtaa inaad fiirisid natiijada oo keena. ardayga markuu saacado badan uu wax barto waxaa la filayaa natiijooyinkiisa amba gradekiisa inuu kor u kaco. saacado yar hadduu wax baranayana gradekiisa in uu hoos u dhaco. marka labadaba waa nambaro waxaana samaynaysaa in aad xiriirka ka dhexeeya relationshipka amba correlation ka dhexeeya inaad ogaatid. markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad isticmaasho sawir weliba sawir gaar ayaa la isticmaalaa xy scalar jar loo yaqaano. waa arkayna insha Allah casharada waa ka hadli doonaa. qayb yar buugaan kasoo jaraa jiro su'aalo ayaa lagu weydiinayaa waxa ay hoos imaanaysa waa inaad hore ka fahmi kartaa. waxay ku leeyihiin hadda ma isticmaashaa Facebook oo ma ku leedahay profile. dabcan jawaabtu waxay noqonaysaa inaad Facebook isticmaashid oo account aad ku leedahay iyo inaadan isticmaalin. marka jawaabtu yes and no waay. waxay hoos imaanaysaa qaybtan categoricalka oo jawaabtaha ama yay ku jawaabaysaa wax number sheegaysid ma jiro. marka qaarkood su'aashu waxay noqon kartaa imise message ayaa isbuuci la soo dhaafay aad dirtay. markaan ha inoo kuma jawaabi kartid waxa laga rabaa number laga rabaa. 4 message aan diray, 5 message aan diray, 6 message aan diray, 10 message, 100 message aan diray. markaasoo kale wuxuu iska noqonayaa numerical amba quantitative ayuu noqonayaa. waxaana hoos imaanaya discrete wax la tiri karo 1 2 3 4 3 message iyo jawaan diray macquul ma aha amba 3 message aad diraysaa amba 4 message aad diraysaa. marka discrete wuxuu noqonayaa nambaro aanan jajab xoogaa yar aanan geli karin. su'aal kale waxaa imaan karta oo lagu dhahayo war imise ayay kugu qaadatay imise daqiiqa imise second ayay kugu qaadatay inaad video soo download garaysid. internetka gashay video waa soo degsanaysay imise ayay kugu qaadatay. hadba waxay ku xiran tahay internetkaaga soo fast u yahay qaar 2 daqiiqo 3 daqiiqo 4 daqiiqo iyo videoga cabirkiisa iyo MB-giisa. marka taasoo kale waxaa ku jawaabaysaa ayadana ha imay kuma jawaabi kartid. waxaa laga rabaa daqiiqada laga rabaa. daqiiqadaas ku jawaabaysa waa number laakiin wuxuu iska noqonayaa continuous wax loo yaqaano oo ah waxay iska noqon kartaa hal
hal daqiiqo iyo intaasoo second 2 saac iyo 3 daqiiqo iyo 15 second markaas waxaa imaanaya jajab waxaa loo yaqaanaa continuous marka nambarada waa arki doonaa dil arado marna wuxuu noqonayaa discrete marna wuxuu noqonayaa continuous maanta insha Allah taala intaas ayaan ku hakanayna cashirka soo socda waxaan ka hadli doonaa scale-ka hadii la yiraahdo kadibna waxaan sii gudbaynaa cashirada noogu xigo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh